السلام عليكم داوديال soo dhawaada waa Jamiilo oo marka la idinku soo laabatay in muddo markaan kala maqnayn immigrationka waxyaabo badan ayaa ka dhacay marka arinta citizenshipka ama jinsiyadda wadanka waraaqaha lagu qaato ama shuruudaha lagu qaato ayaa wax laga bedelay August 15 waraaq ayaa soo baxday wareegta oo memorandum August 15 ayay soo baxday August 15 ayaa marka waxaa soo baxay good moral character qofkaani qof fiican ma yahay midda ayaa wax laga bedelay awal waxay ahayd dambiile ma yahay waxaan ma sameeyay marka haddaan gadaal ugu yaro noqono arintani waxay soo baxday sideedaba oo sharciga Mareykanka lagu daray 1906 ayuu Congress-ka wuxuu gudbiyay naturalization-ka sharciga lagu qaato dhalashada wadanka naturalization-ka ayaa gadaal loo qoray markii la qoray ayaa waxa lagu daray qofku inaan laga eegin kaliya inuu dambiile yahay iyo in kale in laga eego qofkaani qof fiican ma yahay in laga eego marka waxyaabo badan ayaa markaas loo isticmaali jiray xilligii markaas jiray ayaa waxay ahayd dagaalo ayaa jiray tiro badan ayaa jiray adduunka Mareykanka markaas waxa loo isticmaali jiray dadka la rabo in laga takhaluso kaleeto in aan loo diido deganaanshaha wadanka ama loo diido citizenship oo kale waxba isma bedelin it's just the same thing different time waqtii la soo celiyay marka 1900 iyo 52 ayaa waxaa la sameeyay qofku inuu 5 sano deganaanshaha inuu cadeymida hadda taqaanaan 5 sano inuu wadanka joogay inuu good moral character oo qof fiican uu yahay dambiile uusan ahayn 3 sanana loogu talagalay qofka xaaska ama muxuu ahayd guurka sharcigiisa uu ku saleysan yahay taas ayaa meeshaas ay ka timid waqtiga hadda taqaanaa 5 sano la sugaa midna 3 sano la sugaa xilligaas ayaa la soo saaray marka mar walba waxaa loo isticmaali jiray xilliyadaas oo kaleeto qofku ma yahay qof wanaagsan oo kale qofku dambi miyuu soo galay oo kale markii laga soo gudbo fast forward xilligii Trump oo koowaad uu soo galay madaxweynenimada uu qabsaday muxuu ahayd 2019 iyo 2020 ayaa la xoogaa waa la soo aruuriyay sida loo eego dadka dambigooda oo kaleeto dambi hebel hadaa gasho kale muxuu ahayd sharci ma lihid sida inaad muxuu ahayd qof hadaa dishay oo kale fraud hadaa sameysay oo kale dadka ka biic mushtara oo la yiraahdo trafficking human trafficking oo kale kuwaas waa dambiyo waaweyn sida inuu qof waxaday oo kaleeto ayaa lagu daray qof lagu qabto habitual drunkenness in qof mar walba iska daroogaysan oo muqaadaraad aad u isticmaala aad tahay sida dadka gamblingka sameeya oo ciyaara turubka iyo waxyaabahaas iyo qof ka cararay canshuurta oo kale canshuurtu mar walba wax weyn ayay ahayd marka backgroundkaas markaan ka soo gudubno Biden ayaa madaxweynenimada qabsaday Biden marka sida lagu yaqaano nimankan dimuqraadiga mar walba uu nin ama Republican ama GOP ama nin cad oo cunsuri uu sharci sameeyo kale waxay sameeyaan sharciga si toos loo macaliyo lama dhaho sharcigan waa khalad Congress-ka la geeyo inta la geeyo gadaal loo celiyo midna lama dhaho waxay sameeyaan gadaal la dhigaa meel loo celiyaa gadaal markii loo celiyo ka bacdi waxay sameeyaan waxay leeyihiin dedejiye application card marka Biden taas ayuu isticmaalay ka muddo wana nimanka dimuqraadiga Donald Trump waxyaabihii uu soo saaray muusan ka takhalusin ama revoke muusan sameynin wuxuu sameeyay wuxuu yiri hal dedejiyo dadka sharciga la siinayo kaleeto laakiin sharciyadii ama muxuu ahayd waxa meesha laga saaray flexibility-ga sababtoo qof waxa laga yaabaa asagoo ilmo yar inuu dambi galay oo kale qofkii qof weyn uu noqday reer u yeeshay ilmo leeshay marka mar walba waxa la eegayaa muxuu sameeyay qofkan dambi ma galay marka August 15 ayaa waxa la soo saaray mid holistic approach si guud ahaaneed in qofka loo eego sidii in la xisaabinayo number oo kale
waxaa la yiri positive contributions maxaad kasoo kordhisay ummadda qof ma tahay haddaa kaniisada aadid ama masaajidka aadid ka tirsan oo kaleeto and we know where that's going uma socoto masaajidka I'm just saying and dadka bulshada ah wax ma kusoo kordhisay oo community service ma samaysay muxuu ahayto qof ma tahay ficilo xunxun geystay oo kale negative behavior sida inaad traffic badan aad muxuu tigi tira badan lagu siiyay oo kale canshuur aad bixinin oo kale child support inaad bixinin I know nimanka dadka that's something aad u danaynayaan inaadan eegin oo kale awal canshuurta marka waxaa la sameyn jiray canshuurta haddii dowladda ama dowladda hoose dowladda sare qoladii kugu lehba haddaa caddeyn karteed inaad canshuurtii aad ku bilowday payment aadna wado inaad lacagtii bixiso oo aadan muxuu ahayta ka seexan oo aadan aysan ahayn waxaadan inkiraynin payment plan aa haysatid ama payment aa samaysay oo kale waa laga gudbi jiray hadda waxa way ma wada bixisay lacagtii debt oo dhan ayaa laga soo horjeedaa qofkan wax lacag ma lagu leeyahay you know waxa dadka kala ka imaado isticmaali karaan isbitaalada remember Soomaalida dheg yar markii dadka laga qabto even though sometimes yes a lot of people ma yaqaanaan systemku soo shaqeeyo haddii meel yar laga qabto emergency ay tagaan that why asaga laftarkiisa I'm not saying way isticmaali doonaan badada soo hoskali kara uu imaan karaa meesha qofku ma yahay something else lagu daro oo ahaa educational attainment like qofkan qof wax wadanka ku bartay ma yahay shaqada ma yahay qof ka haysta muxuu ahayto like previews fiican oo jacbooskiisa uu jecel yahay shaqo badan ka shaqeynaya Soomaalidana saa ula wada socotaan intooda badan waa ayaga xamaasha oo dad uma shaqeeyaan intooda badan marka waxa dib weyn meesha uu ka taagan yahay waxay tahay subjective waxaa laga yaabaa dambi inaad gashay dambigan waxaad gashay 10 sano ka hor 15 sano ka hor ilmo yar ayaad ahayd officer A ayaa loo dhiibay application kan marka officer A wuxuu eegayaa qofkii oo dhameystiran markuu eego wuxuu leeyahay qofkan ma shaqeeyaa wax ma ku soo daraa canshuur ma bixiyaa waxaas oo dhan ayuu eegayaa dan dambigii waa iska dhaafaya marka dambigii ahaa 10 sano ka hor xillo ilmo yar ahaa khalad uu galay everybody khalad uu galaa way ka dhacday second chance qofkaan siino uu ka gudbinaa officer B aa soo haray marka officer B marka wuxuu sameyn karaa wuxuu dhihi karaa muxuu ahayto xilligii hore wixii aad samaysay oo kaleeto ayaan kugu xugminayaa hadda so waxaa la siiyey awood ah in applicationka qofka hor yaala oo officerka ah oo immigrationka u shaqeeya asaga go'aan inuu ka leeyahay uu ka gaari karo waxaan inuu diidi karo ama yeeli karo taas oo ah subjective decision taas dhib weyn ayay keenaysaa marka waxayna ku xiran tahay officerka because awal officerka waxaa la dhihi jiray waxaa loo dhiibi jiray warqad waxaa la dhihi jiray warqadan eeg 1 2 3 4 5 tobankan shay hadday meesha ka maqan yihiin waa inaad approvetaa waa inaad saa yeeshaa waxay lahaayeen guidelines hadda marka meesha waxaa la soo geliyey in uu qofkaani go'aan ka gaari karo oo guidelineski yes weli way jiraan oo qofka haddii dambi lagu helay haddii ay wax ku socdaan oo kale waxyaabahaas oo kale weli saameyn weyn ayay leeyihiin laakiin midda ah qof hebel in uu ka gaari karo go'aan ama uu diidi karo hadduu rabo xitaa uu diidi karaa without an explanation mana sharaxayaan hadday rabaan so dad aad u fara badan ayaa dowladda u shaqeeya oo aan jeclayn dadka soo galootiga ah gaar ahaan dadka soo galootiga ah madowga ah diinta kala haysta marka dadkii ayaga ahaa ayaa marka waxaa la siiyey awood aysan horay u lahayn sharcigan taas ayuu siiyey midaas ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo quote-aan rabay inaan ku yaro daro oo waraaqda memorandumka soo baxday ama wareegtada Soomaalida wareegtay u taqaanaa uu yiri Donald Trump warqada la qoray so let me see I don't want inaan idinku wareeriyo muxuu ahayto way tira badan tahay marka inaan kaliya la eegin waxa ugu muhiimsan awal waxa la eegi jiray qofkan dambi ma galin mise ma galin dambi lama yahay hadda ma aha so the absence of crime kaliya inaan la eegin that's the code the absence of crime kaliya inaan la eegin inuusan qofkan dambiile ahayn kaliya inaan la eegin oo la eego
muxuu sameeyey muxuu soo kordhiyay xagee buu istaagay canshuurta ma bixiyo child support ma lagu leeyahay muxuu to traffic badan miyaa lagu qabtay laysanka mar miyaa laga celiyey qolo kale miyaa dacweysay ma waxbuu qolu dacweeyey maxkamad miyaa ku socota habar miyay meel maalin isku qabsadeen ma shaqeeyaa canshuur ma celiyaa meeqasan uu shaqaynayay muxuu kusoo kordhiyey ummadda intaas in la mida oo aad u tiro badan ayaa lagu soo daray waxayna ku xiran tahay officerka ama qofka dowladda u shaqeeya oo homeland security-ga u shaqeeya inay tahay mid uu asaga go-aan ka gaari karo taas ayaan rabay inaad idin la socodsiiyo maalmaha soo socda application video badan aan soo gelin doonaa haddii aad idma la socda midda kale waa soo gelin doonaa linkiga videogan hoosteeda ku jiri doonaa haddii aad idmo coursigayga waa la socotaan dhowr sano ka hor aan sameeyey dadka raba inay qaataan sharciga oo kale oo waxaa waaye waa $100 hal mar aad helaysaa username password waa bedeli doonaa madaxweynaha sababtoo ah markaan coursiga sameynayay madaxweynuhu wuxuu ahaa Biden hadda marka I think Biden uu ahaa hadda Donald Trump ayaan muxuu ahayd ka dhigi doonaa ma xasuusto I think 2021 in ahayd markaan sameeyay marka coursigaasaan ku dar doonaa dadkiina sharciga qaadanaya waa inaad imtixaanka ka gudubtaan dad aad u tiro badan oo awal imtixaanka meelo kale u mari jiray ayaa jira hadda taas waa la isaga yimid marka khayr aad u fara badan ayaan rajeynaa assalaamu calaykum